isu noqod wanaagsan oo wacan daawadayaal halka nagala socotaan waa channelkeena xogaha wararka oo aynu ku soo qaadano wararkii ugu dambeeyay ee caalamka. Maanta waxaynu soo qaadan doonaa wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka marinka Gaza ee Falastiin iyo guud ahaan xiisada ka taagan gobolka Bariga Dhexe. Waxaan ku horeynayaa dagaalamayaasha Al-Qassam oo goorsii horeysay qoraal soo dhigay bartooda Telegramka isla markaana sheegay in hadda laga bilaabo maalin waliba in tacsi iyo barodiiq ay ka dhici doonto meel kasta oo kamid ah dhulka la haysta ee Falastiin iyo in maalin kasta waqtiga ciidamada gumaystaha Yuhuudda laga soo qaadi doono isla markaana laga soo daadgurayn doono qaybo badan oo kamid ah marinka Gaza ee Falastiin. Haddii gumaystaha Yuhuudda ay joojin waayaan duqeymaha iyo weerarada ay wadaan, waxa Al-Qassam ay markaasi ku hanjabeen in tiro badan oo ka tirsan ciidamada gumaystaha Yuhuudda in markaasi la xasuuqi doono maalin waliba. Tani ayaa ku soo aadaysa xilli wararka haatan aynu helayno ay markaasi tilmaamayaan in geesiyaasha Al-Qassam in xalayto ay fuliyeen weerarkii ugu cuslaa abid tan iyo xilligii Yuhuudda ay duulaankii weerarka ku qaadeen marinka Gaza ee Falastiin. Wararka ka soo baxay marinka Gaza ayaa tilmaamaya in Al-Qassam ay fahamsanaayeen wadada ay isticmaalaan ciidamada gumaystaha Yuhuudda iyo halka gawaaridooda ay soo maraan, taasina ay u fududeysay in waxyaabaha qarxa ay markaasi u geliyaan wadooyinka iyo dhismayaasha qaar ay ku yaala halkaasi. Geesiyaasha Al-Qassam ayaa xalayto waxyaabaha qarxa oo aad u xoogan gantaalada barakeysan ee Yaasiin 105 iyo sidoo kale madaafiicda noocyadooda kala duwan waxa ay la beegsadeen isla markaana ay ku burburiyeen gawaarida ciidamada gumaystaha Yuhuudda, waxaana halkaasi ku baaba'ay tiro badan oo ka tirsan ciidamada gumaystaha Israa'iil. Wararka haatan aynu helayno sidoo kale waxay tilmaamayaan in ciidamo gurmad ah in iyagana la beegsaday, waxaana halkaasi ku gubtay qaar badan oo kamid ah sida wararka aynu ku helayno ilaa ay ka gaareen heer meydadkooda markaasi laga aqoonsan waayay. Waxaa sidoo kale jira qaar badan oo kamid ah ciidamada gumaystaha Yuhuudda oo ku dhex gubtay taangiyadii ay saarnaayeen oo hal mar lala kiciyay miinooyin hore ee halkaasi ugu sii aaseen geesiyaasha Falastiiniinta ah ee Gaza markaasi ka dagaalamayo. Warbaahinta Israa'iil ayaa haatan markaasi laga tabinayaa in la joogo xilligii dagaalkan la joojin lahaa, maadaama tiro badan oo ka tirsan ciidamada gumaystaha Yuhuudda markaasi la xasuuqayo sida haatan wararka aynu ku helayno. Taliyaha guud ee ciidamada militariga ee gumaystaha Israa'iil Eyal Zamir ayaa isagana la filayaa in saacadaha nagu soo aadan in warqadiisa iscasilaada uu markaasi soo gudbiyo. Waa sida uu sheegay wasiirka gaashaandhigga ee dowladda gumaystaha Israa'iil ninka lagu magacaabay Israel Katz. Ninkan ayaa isagu markaasi sheegay in uu iscasili doono kadib xasuuqii askarta tirada badan ee ciidamada gumaystaha Yuhuudda ka tirsan loogu geystay magaalada Beit Hanuun ee waqooyiga marinka Gaza ee Falastiin. Eyal Zamir ayaa kamid ah sida wararka aynu ku helayno hogaamiyayaasha ciidamada militariga ee gumaystaha Israa'iil ee dalbanaya in dagaalkan gabi ahaantiisba la joojiyo, halka Netanyahu iyo kooxdiisa midigta fogna ay ku adkeysanayaan in dagaalkan uusan joogsan doonin oo uu markaasi sii socon doono. Dhanka kale dowladda Ruushka ayaa haatan la tilmaamayaa in ay dooneyso in maadada uraniumka ee laga sameeyo bamka atomikada in ay ku wareejiso xukuumadda Tehran. Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Ruushka Sergey Lavrov ayaa goorsii horeysay waxa uu isagu markaasi sheegay in uranium tiro badan oo ay hore u kobciyeen in ay u gacan gelin doonaan xukuumadda Tehran, waxaana tani loo isticmaali doonaa sida ay sheegeen barnaamijyada nabadda ee nuclearka. Tani ayaa ku soo aadaysa xilli marar badan oo hore dowladda Moscow ay carabka ku adkeysay in ay jiraan wadamo badan oo diyaar u ah in xitaa gantaaladooda nuclearka ay markaasi siiyaan xukuumadda Tehran kadib dagaalkii 12 maalmood markaasi qaatay oo sida gardarrada ay ku jirto gumaystaha Israa'iil iyo sidoo kale Mareykanka ay ku qaadeen wadankaasi Iran, gaar ahaan xarumaha nuclearka ee dalkaasi Iran. Dhanka kale xildhibaanada aqalka baarlamaanka ee dalkaasi Iran ayaa digniin culus waxa ay markaasi siiyeen madaxweynaha wadankaasi Mas'uud Pezeshkian, waxaana ay u soo jeediyeen in tallaabo adag ay ka qaadi doonaan
oo mooshin xilka qaadis ah ay markaasi kasoo gudbin doonaan. Mascuud ayaa loo haystaa qaabka uu markaasi ula macaamilay iyo wada hadaladii uu la yeeshay dhigiisa dalkaasi Azerbaijan Ilham Aliyev iyo sidoo kale madaxweynaha dalkaasi Turkiga Rajab Tayyip Erdogan, kuwaasi oo lagu eedeynayo in ay ka qayb qaateen in Israel iyo Mareykanka ay kala qayb qaateen weerarkii gardarada ahaa ee Iran markaasi lagu soo qaaday iyo dagaalkii 12 maalmood markaasi qaatay oo Yuhuudda iyo sidoo kale Jamhuuriyadda Islaamiga ee dalkaasi Iran u dhaxeeyay. Mascuud Pezeshkian ayaa maanta lagu wargeliyay in haddii uu sii muujiyo daciifnimada dowladdiisa in tallaabo adag ay markaasi ka qaadi doonaan xubnaha aqalka baarlamaanka ee dalkaasi Iran iyo waliba in xilka markaasi laga xayoobin doono. dhanka kale ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu oo ku sugan caasimada Washington DC ee dalkaasi Mareykanka ayaa maanta waxa uu isagu markaasi sheegay in ay jiraan wadamo badan oo diyaar u ah in shacabka Falastiiniinta ay ku nool marinka Gaza ee Falastiin ay markaasi qaabilaan. Ra'iisul wasaarahan ayaa markaasi sheegay in shacabka Gaza marka ay hal meel isugu geeyaan dhamaantood in mid waliba ay u soo bandhigi doonaan in Gaza uu sii joogayo iyo in uu markaasi u cararayo wadamadan haatan markaasi u ballan qaaday Israel in shacabkan Gaza ay markaasi qaabili doonaan. hayeeshee qorshahan ayaa ka mid ah qorshaha Mareykanka iyo Israel ay gadaasha ka riixayaan lagu doonay in shacabka Falastiiniinta ee ku nool Gaza markaasi lagu barakiciyo guryahooda iyo dhulkoodan looga saaro. Qorshahan oo noqon doona mid markaasi si weyn loogu guul dareysto. dhanka kale ciidamada kacaanka Islaamiga ee dalkaasi Iran ayaa goorsii horeysay waxa ay markaasi iyagu sheegeen in awood buuxda ay markaasi u leeyihiin in Israel iyo Mareykanka maalin waliba ay markaasi la dhacaan boqolaal gantaalo labada sano ee markaasi nagu soo aadan. ciidamadan ayaa markaasi sheegay in xitaa ay awood u leeyihiin in ka badan 5 sano ay la dagaalamaan gumaystaha Israel iyo Mareykanka iyaga oo aan wax saameyn ah markaasi soo gaarin iyo in ay haystaan tiradii gantaalada ee loo baahnaa. ciidamadan kacaanka Islaamiga ee dalkaasi Iran ayaa sidoo kale sheegay in haddii maalin kasta boqolaal gantaalo ay markaasi tuuraan muddo 5 sano ah in xitaa gantaaladooda iyo diyaaradahooda droneska in wax saameyn ah uusan soo gaari doonin maadaama ay diyaarsadeen kumanaan kun oo gantaalo iyo drones ah ayna mar hore isku diyaariyeen dagaal caynkan oo ay markaasi la galayaan Israel, Mareykanka iyo xulafadooda. Tani ayaa ku soo aadaysa xilli ciidamada kacaanka Islaamiga ee dalkaasi Iran digniin adag ay markaasi siiyeen gumaystaha Israel isla markaana ay uga digeen in mar kale xadgudub ay markaasi ka geystaan wadankaasi Iran. Tani ayaa sidoo kale ku soo aadaysa xilli warbaahinta Axios ee dalkaasi Mareykanka ay tabinayso in Israel haatan ay isku diyaarinayso in duqeymo iyo weeraro culus ay markaasi ka bilaabaan wadankaasi Iran waa haddii dowladda Tehran ay dib u bilowdo barnaamijkeeda nuclearka. madaxda dowladda Israel ayaa haatan la tilmaamayaa in kalsooni badan ay markaasi ku qabaan in Trump uu ansixin doono isla markaana uu taageeri doono weeraradan oo xukuumadda midigta fog ee Netanyahu uu hogaaminayo ay doonayaan in ay dib uga bilaabaan wadankaasi Iran. wararka qaarkood waxay tilmaamayaan in Israel ay ku hanjabeen in duqeymo ay ka geysan doonaan wadankaasi Iran haddii xukuumadda Tehran maadada uraniumka oo hore ay u kobciyeen ay ka soo saaraan xarumaha nuclearka ee Fordow, Natanz iyo sidoo kale Isfahan iyo haddii dowladda Tehran ay dib u bilowdo kobcinta maadada uraniumka ee markaasi laga sameeyo bamka atomikada.